walaalayaal oo gabdhaha Soomaaliyeed iyaga iskiliya badankood waxay isku ridaan god intay qotaan bay isku ridaan. waxa dhacda marka qaar gabdha aan isdhaho iyaga midiyaha markay iskeenaan hadhow haduu dhib ku yimaado waxa iyada tiri unba hadhow lagu xiraa. gabdha waxaa jira dada ogtihiin oo ka shaqaysta awlaada yaryarka ah inay gaala siiyaan. waa la socotaan wadan gaala ku nooshihiin, waa la socotaan dadka midiyaha ku jira sida Hana Abuukar iyo asxaabteeda waxyaabaha ay sameeyaan. idinkoo taas oo ina arrimihiina keentaan midiyaha oo familkiini iyo ninkiina waxa isku qabtaan iyo sharciga ku joogtaan waxyaabahaas marka aad kaga sheekaysan midiyaha waxa imaanaysa in ay dhibaato kaaga daba timaado awlaadaadana meel laga soo galo adiga sameeysid. hadda gabadhan walaashay waxaan isku dhahay qari waa isri qari iyada dhan oo yahado cadow ayna yeelan laakiin iyada midiya soo gashay iyada channel leh qurbahana way ku nooshaysan wada ogsoonahay. walaashay hadda hesho videogayga talaan ku siina walaaltinimo videogaan iska xir kan hadda hor yaala iska xir. waxaa dhici karta in intaas yarta ah jid laga samaysto. gabdha waxaa sameysaan xabsi baa isgelisaan, idinka xabsi isgeliyo waxa caadi u haysataan oo dad caadi ah uga waramaysin aad dhib idinku imaan karto. waxa laga yaabaa adiga dad baa qancinaysay saa arkaayo videogaaga, dad baa laga ku aflagaadeeyay, dadkii baa rabtaa inaad qancisid laakiin ogow mustaqbalkaaga dambe adiga afka aad isku xirtaa maaragtay kalifi kara dhibaato ku kalifi kara. ha qancinin bini aadmi ilaahay uun qanci bas. midiya waxaa la yiraahdaa qofku caynaya, qofku amaanaya, qof kula jiro, qof kaa jira inta buu arkaysaa. marka walaashay Soomaaliyeed waa ku waaninayaa hadda videogayga maqasho videogan hortayda yaala iska xir because waxa ka sheekeynaysaa waa arrimahaagii khaaska ku ahaa. waxa ka sheekeynaysaa sharciga aad ku joogtay meesha aad leedahay waa tagay waxaan ka soo sameysanayo waa ogsoonahay ilmaha sida loogu qaato waxa dhan waa la ogyahay. marka ha uga sheekeynin waxa aad ku joogtid adiga iyo gabdhaha Soomaaliyeed kale waa ka waaninaya sharciga waxa lagu qabo waxa ka maqan waxa lagu leeyahay cidna ha uga sheekeynin because cadowgii meeshan ka ugaarsanayay oo ciyaalkeeda gaalada rabay inay siiyaan waxyaabahay kugu soo galayaan baa kamid ah dhahayaan hooyadan saan waay aabahan saan waay kan qofkii markuu noloshaada deep down yani ilaa daaqil uu sii ogaado waxa imaan karta in laga daba yimaado. marka gabdho badan baa arkay kaliya ma gabdho badan oo waxa arkay ka sheekeynaa ilaahay aniga saana ahay aniga sharcigayga saan waaye aniga ninkayga waxaan isku qabnaa aniga muxuu ahaa ilmahayga intuu ku dhashay aniga ilmahayga halkaas uu saas ku noqday aniga ilmahayga sanadkaas uu dhashay. maxaa ugu sheegaysaa waxaas oo dhan waa waxa la meel baa lagu dhiganaya oo waxa la rabo qofkii cadowga ah uu dhahayo gabadhan waa aqaanaa oo ka ilmaheeda waqtigaas uu dhashay aniga waa aqaanaa guurkooda saan waaye aniga waan aqaanaa sharcigeeda sax ma aha aniga waa aqaanaa meel hebraayo joogtay hadhowna waxa soo galaysan idinka wada ooynaa oo dhahay ilmaha laga qaatay hoogayo baaye waxba igu dhacay kan adigii afkaaga inuu ku xiro waa dhibaato. inuu afkaaga ku xiro waa dhibaato adiga ha isku keenay. marka gabdho waxyaabaha badan aad ka fikraynin oo ay isleedahay waa sahal videoga adaa iska leh YouTube kan adaa iska leh waxaad rabtaa ka sameyn kartaa no midiyaad ku jirtaa cadow baa ku jira kuwa ku xumeynaya ku jira adoo waxba geysan oo gabadhaas maskiinta familkeedii ilmaheeda iyo gurigeeda dhaqanaysa baa cadow yeelan kartaa. iska ilaaliya naagahan meesha ku jira oo ayaga ubad ilaahay siinin ku ciyaaraya gabdhaha kale masaakiinta xaasidka ku ah inay qoysaska islaamka ah gacanta u geliyaan iyo awlaada islaamka u geliyaan cadowga gacanta u geliyaan. ha uga sheekeynina sharciyadiina iyo waxa ku joogtaan. hadda gabadhan walaashay waxay ka sheekeynaysaa sharciga ku joogta wadanka Yurub bayna joogtaa oo wada ogsoonaa waxay ka sheekeynaysaa sida ay ninkeeda isku qabaan
waxay ka sheekeynaysaa lacaga midhaa markay dhashay loo soo diray qofka markuu sharci buuxdo ku lahayn yes sharci haddaadan ku lahayn buuxo waa lagu soo diraya marka lacagahaasi badanaa gaalada waxay ku roon yihiin oo wada ogsoonaa qurbaan ku noolahay yaryarood inaad u bixisid inaad bishii u ballan qaadid inaad marba in yar bixisid laakiin inaad dadkan usoo bandhigtid waxaa laga yaabaa inaad isleedaha adiga ha ku caawiyaan laakiin inta waxaa taa raadinaysid laga yaaba inay dhib kale kaaga timaado marka walaashay wax ku dhihi lahaa videoyada saas oo kale qoyskaaga iyo sharcigaaga ka sheekeynaya iska xir private iska geli baan ku dhihi lahaa haddii ay possible taho macquul tahay waxaan ku dhihi lahaa iska geli private qofna ha qancin ilaahay bes baa la qanciyaa ilaahay baana murugo kasta iyo hawl kastoo jira kaa furfuraya insha allah alxamdulilah nicmadaa ku jirta wax maqan ma jiraan xoogaaga yarka lagu soo diranay si yaryara u bixinaysaa laakiin bini aadmi qanci intaas leedahay awlaadaada yarka dhibaataa usoo jiidin walaashay ka fiirsa hadallada iyo waxyaabaha aad ku dhaqmaysid iyo gabadhaha Soomaaliyeed kulligoodba kaliya ma aha kulligoodan sheegaya gabdho badan waxa arkay saas oo kale ka sheekeynaa noloshooda oo dhahay aniga saas ay haysato aniga waxaas ay haysto aniga wadanka sharci kuma lihi aniga sharciga ninkaygu hebel buu ahaa aniga wadan kale ninkaygu ka yimid waxaas oo dhan waa shu'uuna daakhiliya shu'uuna daakhiliyana halkan haddaa soo dhigtid adiga unbay hadhow ku xaaran doontaa adiga unbay dib kuugu soo noqon doontaa adiga unbaa lagugu isticmaali doonaa yacni waa hub lagugu toogan doono waa hub lagugu dili doono waa arrin lagugu ogaanayo lifekaaga iyo noloshaada dhiibka lagu ogaanayo noloshaada dhiibka marka la ogaadana waa waxyaabaha awlaadaada yarka dhibaatada u keeni karo marka gabdhaha ka fiirsada waxaan aad samaynaysaa hadda gabadha walaashaya gabdha isleedahay qanci laakiin consequence ama ciqaabta ka imaan doonta hadhow kama ay fikirin oo ah in awlaadeeda laga daba imaan karo in cadowgu isticmaali karaan dhihi karaan ha hinti baa siisa ama fikrad baa siisa ama waxba igu dhalisay balfiir waxa macnaha ay noloshaada inay taqaan gabar kale wallahi iyadana waxay jirto awlaad yar haysto Europe joogto I think iyadana inay waxyaabo badan inay ka fiirsato inay u fiican tahay si fiican bay u hadashaa gabadhaas waa gabadh Nasriin la yiraahdo Nasriin wax badan oo wanaagsan baa ku hadashaa hadaa videoga hesho ka fiirso dad yoga badan ay ka soo hadlaysid arrimaha badan ay ka soo hadlaysid hooyo ubad haysataa tahay aad iyo aad uga fikir macaanto aad uga fikir awlaadaada yarka meel laga soo galo duleelaha sameeyeen meelo duleelaha sameeyeen duleel kasta waa inaad iska dabooshaan meel kasta oo idinka imaanay gabdhaha Soomaaliyeed waa inaad iska dabooshaan badana idinka dhibaatada isku keena saan dareemo waayo idinkiba miiriyaha kula soo ordaya wixii miiriyihiina guriga hooyada ma aha waa meel ummadda Ilaahay wada fiirsanayso xaasid iyo xabiib waa fiirsanay mid ku jecel iyo mid ku neceb waa fiirsanayaan awlaadana sideedaba khatar badan bay ku jiraan dad aan shaqo kala lahayn meeshan way fadhiyaan maadaama isaas tahay maxaa arrimahaaga daakhalka keenay arrimahaaga waxa keeni kara ha ka sheekeen walaashay ha ka sheekeen tan iska xiran ku dhilaa bal gabadha walaashay dad bay saada qanciya معناها وحاد دحدي متخانين انت ايسو دعزم كلا انت حن oo aniga beenta iga sheegaysa ma garateen waxay korto waxay midaa baay waxay isoo qabtaa baay aniga kariim isku qornay miya kariim aniga soo laakiin isku ma qabno sharciga wadankan soo ma u baahanahay inaan dalmaag tagno dalmaag iska aroosno way Soomaaliya isguursada safaaradda Soomaaliya tagtaa marka cadeynaa meesha keensada labada inay is qabaan amal aniga safaaradda Soomaaliya weyn diiday Soomaaliya waxa ku khasbanahay dalmaag inaan tagno oo dalmaag iska aroosno dal marka arintaas oo kale bal hadda waxay ka sheekeynaysaa safaaradda Soomaaliyeed waxay ka diiday inay wadan kale inay aadaan sharci ay ku soo sameystaan waay aad uga sheekeynaysaa bay arrimahaas oo kale waxaan oo kale waa waxa dhibka idin soo jiidaya ma fahmaysaa macaantadeedii haddii fariintayda hesho iska xir videogan cadow kale intuun ku sii maqlin iska xir baan ku dhiilaa waayo arrimahaaga khaaska ku ah gooniya ku tahay wixii gooni ku ah waa gooni waxaa ninka isku qabtaan iyo sharcigaaga meesha laga diiday iyo meesha laga ogolaaday war noloshaada in aad loo sii ogaado ma fiicna markaa media ku jirtay waxa caama cuntadaada iska karsanaysay ilmahaaga iska korsanaysay taas oo kale waa waxa caamo caadi ah waay dib ma laha waxaas kale YouTube-ka ku wado laakiin arrimaha ku gaarka goonida ku ah ha keeni adiga iyo gabar kasta oo kale waa ka waaninaya gabdhow idinka badgala hadhowna idinka ooyay waxaan ka baqayaa mustaqbalka inuu ka daba timaado videoga marka hadii aad noqosho walaashay Reyna iska xir waa talo walaaltinimo ku siina wallahi hays dhihin waxaan waxa laga ma qaadi karo laakiin waxa laga qaadi karaa
la socotaas. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.